السلام عليكم دمان walaalaha ku xiran cilmi bahashay channel haddana anagoo daba joogna taxanayaashii barnaamijyadeeni waxaan maanta jeclaysanay in aan idinla wadaagno jacayl dhaxalgal ah oo ay sameeyeen laba lamaane oo u kala dhashay Suuriya iyo Soomaaliya daawasho wacan jacayl baa isku keenay Maxamuud waa qaxooti Siiriyaan ah Naciimana waa qaxooti Soomaali ah way kulmeen waxay isku gursadeen Dimashq laakiin dagaalka ayaa ku khasbay in ay u cararaan Lebanon waxaan gursaday qaxooti xaaskayguna waxay ku nooleed qaxootinimo 12 sano Suuriya weligay ma u malin in aan noqonayo qaxooti mar Lebanon dhexdeeda Nicmo waxay noqotay qaxooti markii labaad waxaan ka tagay Syria anoo xaamilo ah amaana ma jirin waxaan la kulmi jiray salal badan iyo in nala gabagabeynayo Maxamuudna la kaxaysanayo nolol tarxiil ku maqan ma aha mid sahlan kala duwanaanshaha jinsiyadda waxay keentay su'aalo badan markii ninkaygu uu ilaalinayo gabadha dadku waxay weydiiyaan yaa dhalay gabadhan hooyadeed xagee ka timid hooyadeed waxay ka timid Afrika maxaad u guursatay Maxamuud xaaskiisa iyo gabadhooda dhawaan way guurayaan haddana waxay dib u dejin ka heleen Finland iyagoo weheliyaan hooyada iyo walaalaha Maxamuud waxay rajeynayaan in ay kama dambeyn saldhigtaan mustaqbal cusubna yeeshaan waxaan ka daalay u kala gooshka wadan guri ka guri iyo daris cusub hadda waxaan rabaa in aan hal meel aan ahaado rajada Maxamuud waa inuu sii wataa waxbarashadiisa helana shaqooyinka xagga bini'aadamnimada Nicmana waxay ku laabanaysaa shaqadeedii kalkaaliyanimo waxayna dhaheen gacmo wada jir bay wax ku jaraan